yaryariiso isagana waa la dilay ilaa iyo hadda humaag baa ku jira sababtii loo dilay iyo wixii ka dambeeyey tuhun badan baa waxaan ka qabnaa in ay al-shabaab iska noqdeen dad la adeegsado oo gacmo kale iyo dana kaleeto ay adeegsadaan sidaba horay mararka qaarkood jariidadaha caalamka iyaduna saas oo kale u sheegeen la beegsiga muddo 2 bilood ka yar in laba guddoomiye oo Puntland ah iyaga loo qasto oo qorshaha intaa la eg ay al-shabaab oo sheegatay ay fuliyaan runtii baaritaan baan ku wadnaa tuhun badanna waa nagu jiraa horta waxaa jirtay in dilkan ay al-shabaab sheegatay waraad doraatiidaysana waxaad ku sheegtay inay Puntland ka socdaan weeraro hadafyo kala duwan leh wajiyo badan leh lagu diidan yahay deganaanshaha Puntland dawladnimada Puntland iyo horumarka Puntland dadka diidaniyay yihiin horumarka iyo deganaanshaha Puntland dabcan cadawga ummadda Soomaaliyeed iyo cadawga Puntland ba way badan yihiin waa nooc badan yihiin laakiin cid kasta oo deganaanshaha iyo nabadgelyada dad degan oo nidaam iyo maamul kala dambeyn leh falalka ka fudusto waa cadow marka cadawgaas annaga nooma kala socno cid kasta oo cadow ah oo Puntland cadow ku ah waxaan rajaynaynaa inaan ka gungaarno wax ka qabato hadalladaad iyadana waxaa ka mid ahaa in la rabo in la baabi'iyo nidaamka federaalka dawlad dhiska lana wiiqa kala dambeynta madaxweyne ayay yihiin dadka wiiqaya kala dambeynta iyo ama baabi'inaya nidaamka federaalka waxaa ka mid ah dawladda federaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sameynayso waxaa ka mid ah in ay hadda u soo jeesatay in ay rabto inay maamulka Puntland madaxdiisa iyo nidaamkiisa si toos ah la xiriirin waxay isku dayaysaa inay bulshada iyo deegaanada iyo dad gaar ah ay si toos ah la xiriirto taas waa mid ka hor imaanaysa nidaamkii dawlad dhiska ee Soomaaliya ku socotay ayay bulshada inaan u adeegno Puntland anaga habeenii maalin u taagan waa maamul 20 sano jiray leh dhammaan hay'adaha fulinta ee dalka heer gobol heer degmo heer tuulo iyo heer dawlad state-ba diyaarna in inay ummadooda adeegaan waxaana markhaanti doonta ah Puntland in ay xarumaheeda ugu muhiimsan oo waliba xuduudaha marka la fiiriyo Buuhood marka la fiiriyo Galdogob marka la fiiriyo Baran marka la fiiriyo magaalooyinkaas oo dhan inta aanan isolationada xamar laga sameyn ayaa qaybtood sameyn waxay muujinaysay inay Puntland diyaar u ahayd inay mas'uuliyadeeda gudato laakiin habka hadda dhaqanku u socdo mararka qaarkood waxaan moodaa wax walba in la siyaasadeeyay madaxweyne waa eedayn culus laakiin wax aad dadka Soomaaliyeed u sheegi kartid ama dadka reer Puntland oo taabasho leh oo cadayn leh oo burburinta ay dawladda dhexe idinku wado ama madaxdeedu ma noo sheegi kartaa hadda diyaar uma ahay inaan tafaasiil halka uga warramo waayo madaxweyne waqtigeeda iyo madasheeda ayaan uga hadli doonaa doorashada waxaa ka dhiman muddooyin bila ah haddaba maxay tahay mowqifka Puntland ee doorashada lagu qabanayo xilligii loogu talagalay waan rajaynaynaa doorashadu in ay ku dhacdo xilligii loo asteeyay waana arrin muhiim ah oo runtii annagu aan taageerayno una aragno inay sida saxda ah ay tahay waxaan rajaynaynaa inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo si la isla ogol yahay oo dadka Soomaalida danaheeda ka shaqeynaya mas'uulka ka ah ay go'aan ka gaaraan marka idinka mowqifkiinu wuxuu yahay in doorashada lagu galo nidaamkii ahaa qabiiliga ahaa ee 4.5 ka ahaa Puntland wax gaar ah ma qabto laakiin waxay ku baaqaysaa oo marar badan ku baaqday in dadka Soomaaliyeed maamulada dawladda dhexe inay isu yimaadaan oo wixii ay u arkaan inay dow tahay doorashaduna ay ku qabsoomi karto in baan ka gaaraan marka inaad heshiisaan idinku oo aad wada hadashaan ma dawladda federaalka diidan hay'adaha diidan in amniga la hormariyo oo ciidamo la dhiso oo maamul goboleedyada iyo dawladdu ay wada dhisaan taana yaa diidan waxaad ogtahay Soomaaliya dawladeedu waa dawlad taageeran oo runtii international community uu caawiyo waxaa la socotaa in ay dawladdan isku dayday international community inuusan caawinta iyo shaqadiisa uusan qabsan waxaad ogtahay madax badan oo madaxii UN-ka u qaabilsanaa Soomaaliya hay'ad uu ka mid yahay in dalka laga eriyay ciddii hadasha in wax la yeelo
waxaad arkaysaa xalana haddii wax yar oo aragti ka duwan ay international soo gudbiyaan hubiyaal la dhacayo waxaasoo dhan waa waxyaabo mugdi ah oo hareeraynaya dowladnimada sida loo doonayo marka tuhun badan baa jirta oo aan rabno inaan ooda ka qaadno oo muddo aan hoos jeclayn inaan u xallinno laakiin waxaa moodaa habka dalka u socdo waa hab khatar ah oo dhiilo mudan oo u baahan dadka Soomaaliyeed inay tala ka gaaraan arrinta beesha caalamka maalin dhaweydna hadalkii aad jeedisay way ku jirtay oo waxaa ka mid ahaa oo aad tiri run ahaantii waa ka xumahay beesha caalamka oo hafarta inay amniga Soomaaliya ka shaqeeyaan waxay sheegaan inay waxaan sheegayaa inaysan Puntland amnigeeda ka shaqeyn inaysan ka go'nayn in ciidamadeeda la dhiso dadka aad sheegayso ee ka tirsan beesha caalamka ee horumarka iyo dhismaha Puntland saluugsan ayagu waayo runtii internationalka u garaabaya maxaa yeelay wax dib badan bay la kulmeen laakiin waxaan maleynaynay maadaama lacagta Soomaaliya lagu bixinayo ay tahay canshuurtii ummadahooda laga soo qaaday inay ku dhiiradaan sida saxda ah inay u maalgeliyaan caqabado badan ayaa ka yimaaday sida mashaariicaha loo fulinayo waxa ay dowladda federaalku mararka qaarkood ay ku samaysaa gacan bidixayn iyo inay u dhacdo deegaanada Puntland oo mararka qaarkood ciidamo ka qorto oo mararka qaarkood qalaanqal ay ka abuurtay oo internationalkuna og yihiin oo waxba ay ka qaban waayeen marka runtii muddadii aan aamusi karnay waa soo dhammaatay mowqifkeena khaasatan ka mas'uul ahaan ii muuqda waxa weeye inaan ummaddan danaheeda aan ka shaqayno difaacno ummaddanna isku tashato haddana dib baan ugu noqonayaa su-aashii ma cid baa jirta beesha caalamka ka tirsan oo dowladda federaalka idinla hafinaysa cid gaar oo aan tilmaamayo ma jirtaa laakiin way jiraan si guud baan u hadlay aniga dhaqaalaha ka yimaada oo intooda badan gacanta dowladda dhexe ku jira sidii la rabay uma ay soo gaarin sidee la rabay inay u soo gaaraan bal noo sharax hadda waraysi aan isku ogeynay inaan wax sharaxo maanta iskuma ogeyn